السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواad warka TV-ga Somali Channel Studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanaya. Aniguna waa Saacadiye Garabay. Qodobada wararka daawan doontaan waxaa kamid ah xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegtay inay guddi u saareyso sii deynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalalka dibadda. gudoomiyaha guddiga maamul dhisidda baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dhaliilay qaabka dawladda federaalka Soomaaliya u mareyso shirka dib u heshiisiinta ee gobolada Jubbooyinka. banaanbax dawladda Belgium looga dalbanayo inay ku sii deyso madaxweynihii hore ee maamulka Ximin iyo Xeeb iyo Maxamed Cabdi Afweyne ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanada ay ka taliso maamulkaasi Ximin iyo Xeeb. wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hadda NCI ayaa magaalada Garowe ugu qeybiyay deeq raashin ah ilaa 140 qoys oo isugu jira dad barakacayaal ah iyo waliba dad danyar ah. maayarka degmada Barbarana Cabdishakuur Maxamed Xuseen ayaa maanta qalab isboorti waxa uu ka gudoomay dhalinyaro qurbo joog ah horeer Barbara ah. magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay seminar markaas dhalinyaro loogu barayay luqadda Carabiga iyo kutubta diiniga ah. inta daawadayaal qodobada wararka iyaga ugu door karoon iyagoo faahfaahsan iyo kuwa kale waxaa daawan doontaan gordho balse haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah.